بسم الله، الحمد لله والثناء لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهي ميلاد شوفتان بعد بانيدين سلامية وحان إذين رجينيا خير الدنيا يا خير آخرات إن شاء الله تعالى. caawa waxaan halkan kasii wadaynaa sheekadeenii inoo soo socotay baan isku dayna caawa insha allah inaan dhamayno. waxay inoo joogtay wiilkii aynu u bixinay Mustafa oo sheekh intuu yeelay waan isdilayaa. isdilkaasina ma ahayn mid isagu isdilaya, waxay ahayd wuxuu yiri waxaan isu dhiibayaa dowladda islaamka ee meeshaas ka talinaysa si ay ii qisaasto. waayo diinteenu waxay inoo sheegtay qofku haddii uu guur soo maro oo uu zino ku dhaco inay qisaastiisu tahay in la dilo. marka sheekhii waa kii ku yidhi waxaan kuu gelinayaa nin sheekh oo caalim ah, ninkaasa marka yaa kuu sheegaya haddaadan aniga aadan i rumaysnayn. marka sheekhii wuu ogeeyey, subxaan allah. sheekhii wiilkii wuu waaniyey, wiilkii wuu ka tegay. marka sheekhii maalinkii dambe sheekhii baa wiilkii sheekhii caalimka ahaa wuxuu soo wacay sheekhii ay isbarteen wiilka Mustafa. wuxuu ku yidhi warniyahow ninkanaad ii keentay muxuu ahaa, maxaa dhacay? wuxuu yidhi habeen iyo maalin taleefanka igama dhigayo. wuxuu leeyahay buu yidhi yaa sheekh ilaahay ka cabso, ma hubtaa in ilaahay toobada iga aqbalayo? yaa sheekh haddaba aakhiro marka la tago maalinka yoomal qiyaamaha ilaahay waxaan ku odhan doonaa yaa allah, sheekhana igu yidhi la imow toobad la imow, ilaahay dembiga uu kuu dhaafiyo insha allahu tacaala, ha isqisaasin. sheekhana yidhi ma hubtaa sheekho? markii dambe wuxuu ku yidhi subxaan allah, wiilkaygiio waxaanan hubin kuumaana sheegeen, ilaahay addoommadiisa u soo noqdo wuu jecel yahay. bas marka muddaa laga soo wareegay. maalmaha ka mida wiilkii Mustafa ahaa sheekhii buu soo wacay. wuxuu ku yidhi inaan is aragnaa u baahanahay. xusuusna wiilka iyo sheekhu magaalo ku wada nool yihiin, laakiin wiil oda sheekhu ma yaqaana wiilka reerkiisa. bas wuxuu yidhi maalinkii dambe masaajidkiiba isugu yimaadeen. wuxuu yidhi yaa sheekh waxaan rabaa inaan kuu sheego, waxaan aadayaa safar baan aadaya. xaggeed u socota? xajkaan u socdaa. maasha allah tabaaraka allah, haye aan israacno. maya adi iska tag, anaa keligay, anigu anaa tegay. sheekh wuxuu yidhi waan farxay. waxaa yidhi wiilkii iimaankiisii wuu ku soo noqday, qof naxariistii rabi baa soo gashay, hadduuba xaj iyo meelahaas uba qalbigiisa ku hayo. bas xajkii buu aaday, sheekhiina xajkii buu aaday. maalinkii dambe waxaa lagu kulmay jamaraadka marka la tuuranayo, dhagaxaanta la tuuranayo meesheedii ayuu sheekhii wuxuu arkay wiilkii Mustafa la dhahayay oo dhagaxaantii tuuranaya. sheekhii wuu farxay, wuu dhawaaqay Mustafa. xusuusnahu Mustafa ma aha wiilka magaciisa runta ah. Mustafa inaga unbaa u bixinay. qisadan markii aan soo dhageysanayay muusan sheegay sheekhu wiilka magaciisa runta. alaa kulin wiilkii uu ka cararay sheekhi. xajkii baa la dhamaystay, wiilkii wuxuu ku noqday magaaladii. sheekhii maalinkii dambe is arkeen. maxaad wiilkaygii oo maxaad iiga carartay meesha markaan joognay? wuxuu yidhi yaa sheekh maxaad anigaygan dambiilaha ah maxaad u rabtaa adiga oo jooga xaramka ilaahay, adiga oo jooga oo cibaadaysanaya, maxaad anigaygan dambiilaha aad u rabtaa buu yidhi inaan kuu soo dhawaado? subxaan allah. waxaan isiri buu yidhi makhluuqaas meesha isugu yimid oo dhan armaa camalkooda laga aqbali waayaa waxa aad adigu samaysay dartii. subxaan allah. iimaanka ku jira cajiibnimadiisa bal fiiri. hadda kahor baa waxaa la sheegayay cumar binu khataab inuu yidhi haddii mid dhawaaqaya dhawaaqo oo uu yidhaahdo adduunka koonkiisa waxa joogo dhami jannaday gelayaan ilaa mid mooyaane, waxaan isu qaadan lahaa buu yidhi oon isu haysan lahaa midkaasina aniga ahay. haddana waxaa laga yaabaa salaadeer iyo soonyeer iyo sadaqa yar intaan samayna inaan idhaahno haye jannaan gelaynaa. marka subxaan allah. marka wiilkii wuxuu yidhi waxaan kaaga cararay buu yidhi, waxaan isiri buu yidhi qof waxaa tahay dembiile ah, dadkan aan dembiga aan lahayn maxaad adigu geysatay aan geysanin agtooda ha tegin. haddana waxaan isiri buu yidhi sheekho, waxaan isiri naftaydii aan ku sasabay
ma laga yaabaa in iyaga dartood ilaahay adiga kuugu dambi dhaafo calaa kullin wuxuu yidhi maalinkii dambe sheekh baa wuxuu ka yimid buu yidhi magaalada madiina wuxuu yimid magaaladii aanu joognay muxaadar u jeediyey buu yidhi muxaadaradii uu jeediyey wuxuu ka sheekeeyey wiil la odhan jiray nin la odhan jiray rabiicatu ibnu khusayma ayuu ka sheekeeyey oo ahaa nin ay dhalinyaradu ku daydaan oo dhalinyarada role model u ah oo mu'min ah oo macnaa maasha allah tabaaraka allah marka waxay yidhaahdeen gaaladii ninkan ay dhalinyaradu ku dayanaysa haddaan isaga aan fasahaadino dhalinyaraduna marka way fasahaadaysaa oo isagay ku dayanayaan wuxuu sameeya waxay u malaynayaan inuu wax wanaagsan yahay gabadh ba u yeedheen waxay ku yidhaahdeen haddaan 100 diinaar ku siino waxaa laga sheekeynaya waxa weeyaan waa hore weeyaan 100 diinaar haddaan ku siino ninkaas ma soo dhukan kartaa keliya ninka shaa ahaa 100 diinaar wax badan baa kusoo samayn karaa waaye orod bali rabiicatu ibnu khusayma oo masaajidka kasoo baxay salaad maqrib ayay lasoo kulantay lasoo istaagtay markaasay way isu bandhigtay wuu ka jeedsaday markaasuu wuxuu ku yidhi quruxdanaad leedahay buu ku yidhi oo ilaahay quruxdan uu ku siiyey sideed u ekaan doontaa markay naftu kaa baxdo ee qabriga lagu geliyo eed saacad ku jirtid maalinka lagu geliyey maalinka ku xigto sideed u ekaan doontaa ma isweydiisay walaashahee maxaad ku odhan doontaa ilaahay markaad hortagto ilaahay quruxdan kuu dhaliyey ee qiimahan kuu yeelay maxaad ku odhan doontaa beritoole markaad ilaahay hortagto ma waxaad ku odhan doontaa quruxdii aad siisay ilaahayow waan kugu caasiyey macaasina waan kusoo sameeyey qoftii waxay ahayd qof islaama bay ahayd oo laakiin caasi ah hadalkiisii baa gabadhii taabtay ilaa iyo markii dambe waxay ay noqotay qof aada u wanaagsan oo naanays caabidatul kuufa loo bixiyey gabadhii reer kuufa ahaydee caabidada ahaydee ilaahay caabudaysa loo bixiyey subxaan allah wuxuu yidhi maalinkii dambe sheekhii markuu yimid madiine ka yimid baa wuxuu yidhi uu ka sheekeeyey sheekhii subxaan allah sheekadii markuu dhameeyey wiilkii wuu dhawaaqay isagoo gurguranayo masaajidka ka baxay isagoo leh rabiica gabadh baa u timid markaasuu iska celiyey aniguna anigiibaa doontay oo zino ku dhacay subxaan allah maalinkii dambe wuxuu yidhi markuu tegay oo muddo laga soo joogay horta wuxuu yidhi waan idiin soo kala dhaafay wiilkii wuxuu bilaabay qur-aankii inuu xifdiyo ilaa faatixa ilaa birabbinaas buu qur-aankii xifdiyey wuxuu bilaabay maalin inuu soomo maalin afuro wiilkii wuxuu noqday wiil xogaa moraalkiisii fiican yahay oo habi ah wiilkii wuxuu noqday wiil kusoo noqday diintii islaamka dib ugu soo noqday oo faraxsan oo xilli walba tallaabo walba oo uu qaadaya ka fikiraya intuusan tallaabada qaadin bas maalinkii dambe waxaa soo wacay wiilka aabihii baa soo wacay wuxuu yidhi sheekh ii imo wuxuu u sheegay gurigii xaafaddu meeshay ahayd buu u sheegay waayo sheekhu muuna aqoon xaafaddu meeshay ku taalo wiil sheekhii wuu baxay xaafadii buu tegay albaabkii baa laga furay gurigu waa guri qasri oo maasha allah tabaaraka allah siduu u egyahay dad aragtaa yaabaysid baa uu yidhi sheekhu albaabkii baa laga furay wadaadkii dhalay wiilka odaygii sheekha ahaa wuu isku duubay hag uu siiyey wuu ooyey maxaa kugu dhacay adeer maxaa kugu dhacay markaas wuxuu yidhi yaa sheekh saaxiibka uu dhintay xalay tooloo dhintay horta waxa weeyaan inta uusan dhimanin sheekhii madiine ka yimid markuu dhameeyey sheekadii waxaa dhacday inuu wiilkii kurbadiisii ay sii badatay kurbadii wiilku way sii badatay sheekhii madiine ka yimid buu la hadlay sheekhii kale wuxuu ku yidhi yaa sheekh wiilkaasaa jooga wiilkaasaa jira wuxuuna mana aaminsanay inuu ilaahay toobada ka aqbalay si walbana waxaan ugu sheegnay maxaan sameeyaa oo maxaad igu caawin kartaa sheekhii madiine wuxuu ka yimid taas waa mid dhib yar buu yidhi waxa kaliya wiilka u akhridaa buu yidhi aayadaha qur-aanka ee ku jira suurat alfurqaan ee ka bilaabanaya marka cibaad uraxmaan markuu ilaahay kasoo sheekeynaya waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara ilaa iyo laga gaadhayo ilaa man taaba wa aamana wacamila saalixan fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat wa kaana allahu gafuura raxiima ilaa halkaa laga gaaraya u sheeg buu yidhi wiilka u ku akhri wuxuu yidhi sheekhii waan soo cararay wiilkii masaajidkii jooga wuxuu yidhi 5 waqtiba masaajidkuu ku tukadaa masaajidka kama dhex baxo
caruurtiisa iyo reerkiisa markuu wax usoo qabanaya mooy inta kale masaajidka ku dhex jiraa. wuxuu yidhi markaan arkay waan farxay, waxaa yidhi buu yidhi yaa mustafe hee sheekh buu yidhi. waxaan bilaabay buu yidhi inaan akhrinayo waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara, markuu ilaahay kasoo sheekeeyay cibaaduraxmaan. waladiina laa yadcuuna waa kuwa aan baryaynin ilaahay la jirankiisa, ilaahay waxaan qof aan ahayn aan baryaynin, kuwaasoon dilaynin naftaasoo ilaahay ka xaaraam yeelay in la dilo ilaa xaq in lagu dilo mooyaane, ama in loo sinaysto qofkaasi mooyaane. qofka taas sameeya wuxuu la kulmayaa dembi buu la kulmayaa, way aayaddu macnaheedu sheegaysaa. yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama, waa loo laban laabaya cadaabka maalinka qiyaamaha. wayakhludu fiihi muhaana, wuuna ku waarayaa cadaabka dhexdiisa ayuu ku waaraya isagoo mid la ihaanaysanayo. aayaddu markay intaa soo sheegeenba waxaa lasii raaciyey ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixan, ilaa iyo mid qof toobad keenay oo camal wanaagsan sameeyey mooyaane. fa ulaa-ika kuwaasi sameeyey camalka wanaagsan ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xumaantoodii wanaag buu ugu bedelayaa. wa kaana allahu gafuura raxiima, ilaahayna wuxuu ahaaday mid dembiga dhaafa naxariisna badan. subxaana allah. wiilkii wuxuu yidhi, sheekhii wuxuu yidhi markaan wiilka ku dul akhrinaya aayadahan qur-aanka ee aan soo gaadhay buu yidhi yudaacaf lahu alcadaab, waxaad u malaysaa buu yidhi mindi inaan wadnaha ka geliyey. wuu aamini kari waayey sheekhii saaxiibkii ahaa inuu sidan ula hadlayo. markaan aayaddii dhameeyey ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixan wa camila camalan saalixan ilaa aakhira aaya markaan dhameeyeyna hab buu isiiyey buu yidhi. wuxuu yidhi buu yidhi yaa sheekh, qur-aanka waan akhriyey, waan dhameeyey, waan ku celceliyey, waxaanad u malaysaa buu yidhi aayadahan qur-aanka maanta inay si hor leh aanu maqlayo. calaa kulli wiilkii wanaagsanaa, wiilkii toobada badnaa, wiilkii ilaahay u noqoshada badnaa, wiilkii wuxuu yidhi maalmaha ka dhimida aabihii isagoo sooman ayaan idhi buu yidhi wiilkaygii oo kaalay soo wada afuree. markaasuu yidhi buu yidhi aabbo, waxaan u baahanaa waxyar inaan masaajidka sii fadhiyo, orod waan kaa daba imanayaa. marka wuxuu yidhi wiilkaygii 10 daqiiqa markaan sugaya wuu ima waayey, walaalkiis oo yar ayaan u diray. waxoogaa markaan sugu wuu ima waayey, wiilkii walaalkiis ahayo 10 jir ayaan u diray buu yidhi. wiilkii ooyayaa i yimid, aabbo mustafa ma dhaqaaqayo. waan soo cararay buu yidhi. waxaan imid buu yidhi wiilkaygii oo membarkii masaajidka haysta buu yidhi, oo laakiin naf yari ay ku jirto. waan soo qabtay buu yidhi, dhabtaan soo saartay. wuxuu damcay buu yidhi inay la hadlo. subxaana allah, sakaraatul-mowdkii baa haleelay. wuu ila hadli kari waayey. hadal daciifa waxay ka soo baxday, aabbo sheekh hebel salaaniga gaadhsii. wuxuu yidhi waxaan wacnay ambalaastii baan wacnay. intay ambalaastii soo socotay, wiilkii daciifka ahaa ee hadalkiisii aan maqli kari la'aa hal mar buu isbedelay buu yidhi. markaasuu wuxuu bilaabay inuu akhrinayo waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara, ilaa aayaddii hadda aan soo sheegaynay ee ka bilaabanaysa ilaa man taaba waamana wacamila saalixan ilaa aakhira aaya ayuu bilaabay buu yidhi. isagoo si qurux badan u akhrinaya ayay naftii ka baxday. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay ha u naxariisto wiilkaas, inagana allah inooga daba naxariisto. waxaan dhammaanteen isku waarinaynaa inaan ilaahay ka quusanin oo dembi walba aan samayno aan ku darno inaan raacino toobadda aan ku dadaalno insha allahu tacaala. dardaarankeena caawaan isu dardaarmaynaa waxa weeyaan, haddii ilaahay yidhaahdo ummadan ilaahay abuuray udaah, bini aadamka ilaahay abuuray udaah. ha ka hadlin bini aadamka ilaahay abuuray, naftina waan ku waaninayaa insha allahu tacaala. walaalahayow, meelaan joognaba makaan aamina allah inooga dhigo. waxaan qabanaynana ilaahay haynala qabto. wadankeena soomaaliya ahaana ilaahay haynoo nabad yeelo. sharka iyo shaydaanka wixii inagu aba allah haynaga qabto. wadankeena wixii burburinayana allah haynaga qabto. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay jannatulfirdows ilaclaa isuu wada keenkeeno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. allahuma salli calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.